Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada walaalayaal caawa waxaan dhiganaynaa dialogue français en Somalie partie numéro 2 gii hore ayaan dhiganaynaa qaybtiisii ku xigtay qaybtiisii labaad c'est présenteux isbarashadii qaybkii la isku baranayay oo waxaan dhiganaynaa citation formelle baan dhiganaynaa oo ah citation formelle waxay ka duwan tahay citation informelle. citation informelle hore baan usoo macnayn oo waxaan nidhi citation informelle waxaa la isticmaalaa waxaalad qofka aad isku cusub qof as garanaysiin oo kale loo isticmaalisiis oo la isticmaalo inta badan t iyo loo isticmaalo ama si familiar loo isticmaalo si qof as garanaysiin oo kale loo isticmaalo. citation formelle kan waxaa loo isticmaalayaa qof si aad qof aad isgaranayn oo isku kiin horeyso marka ugu horeysa waxaa u isticmaalaysaa vous ba qofka u isticmaalaysaa oo vous voyez-moi baa la sameynayaa oo tutoyez-moi qaad ka dinaysaa tida waxaa loo isticmaalaa citation informelle kana vous baa loo isticmaalaa qof aad isgaranaysiin oo kale qof aad isgaranayn weeyaan iyadu oo waa si ixtiraam oo kale leh weeyaan waxaa loo isticmaalaa vous la isticmaalaa kolka ama meel xafiisyada ka shaqeynay ama meel dawlad oo kale ama meel hadii laga shaqaaleysiisanayo ama meel iskool oo kale ama meel meel adigu sa dawlad oo kale ama xafiis ama meel oo kale tahay ama qof isgaranaysiin oo kale waxaa loo isticmaalayaa citation formelle baa la isticmaalaa oo qofka kuma odhanayo kuma isticmaalayo wuxuu ku isticmaali vous quel est votre nom quel est ton nom kuma odhanayo qof isgaranayn kuma bilaabo quel est ton nom kuma bilaabay wuxuu ku bilaabay quel est votre nom oo waxay ka dhigan tahay waa magaca waa isku mid laakiin waxaan maanta ugu dan leenahay citation formelle kana sida loo sameeyo inaan aragno. Quel est votre nom? Vous vous appelez comment? C'est quoi votre nom? Comment vous appelez-vous? intaasoo nooc waa magaca waxa meel qora isugu imanaysa waa magaca. jawaabuhuna hore baan soo aragno je m'appelle magacaygu marka baad sheegay je m'appelle Ali je m'appelle Usman je m'appelle Jama magacaaga sheegay moi c'est adaba anigu waa hebel moi c'est Ali moi c'est hibo moi c'est sheegay magacaaga ama je m'appelle magacaygu waa ama magacaygu je m'appelle baad kartaa. qaybta kale ku xigtana waa nationalité waa qaybtii jinsiyadda ama wadanka u dhalatay la sheegay waxaa lagu yiri vous êtes de quelle nationalité? halgaari jinsiyadaadu waa maxay ama vous venez de quel pays? wadankee baad ka imatay yani wadanka jinsiyadaadu waa kii wadankee baad ka imatay nacam wadanka jinsiyadaadu wadankee baad ka imatay ima kama dhigna maxay ka dhiganta jinsiyada wadankaagu waa kii ama wadankee baad ka socotaa wadankaagu waa kii. vous avez de quelle nationalité ama dhalashada tee baad haysataa dhalasho vous avez de quelle nationalité dhalasho siyaad haysataa ama dhalasho wadankee baad haysataa intaasoo dhan waa isku macno. réponse jawaabuhuna waa maxay haddaad français tahay je suis français haddaad tahay maxay ahayd magaca wadanka la dhunatay wadankaa baad haddaad tahay Senegal je suis Sénégalais waran haddaad tahay Djiboutiana je suis Djiboutien haddaad gabar tahayna je suis Djiboutienne haddaad tahay Soomaalina je suis Soomaaliya haddaad gabar tahay Soomaaliyadana je suis Soomaaliyeen baran haddaad leedahay anu waxaan haystaa jinsiyad waa sidii waxa loo isticmaalo waa féminin oo kale waa une nationalité way kolka waxaan j'ai une nationalité ama j'ai une nationalité somalienne j'ai une nationalité djiboutienne waxaan haystaa jinsiyad djiboutiana ama reer Djibouti baan ahay ama reer waxaan ahay Soomaaliya ama waxaan reer ama Faransiis baan ahay kolkaas waxaad isticmaalaysaa sidaas. casharka kale ku xigta saddexaad ku xigta waa ashkuna waxaan soo nari waa da'da ama waa qofka da'diisa oo kale quel est votre date de naissance dhalashadaadu goormay ahayd ama dadka taariikhda dhalatay waa goormay ma vous avez quel âge ama inta jir baad tahay vous êtes né le goormay baad dhalatay waa isku macno waxay sheegayaan gebi waa ashka ayay sheegayaan. jawaabuhuna ma date de naissance ee xilligan dhashay waa j'ai 20 ans waxaan leeyahay jir je suis né ama waxaan dhashay le xilliga baan dhashay. tagale ku xigta waa profession oo shaqada waxaa loo isticmaalayaa eedna waa vous quelle est votre profession waa maxay shaqadaadu quel est votre métier waa maxay shaqadaadu vous faites quoi dans la vie maxaad nolosha qabataa vous faites quoi comme travail maxaad qabataa
no nolosha. Réponse jawaab waa maxay? Je suis écrivain anu waxaan ahay qoraa. Je travaille à l'hôpital ama dhakhtar baan ka shaqeeyaa. Mon travail est comptabilité. Shaqadeedu waa xisaabiye. Kolka waxaad qabatid un baad sheegaysaa. Imika waxaan arkaynaa citation formelle-ka sida lagu weydiin karo su'aalaha. Su'aalihii hore waa isku mid. Imika waxay ku kala duwan yihiin waa votre iyo tondii. Aan arkaynaa kuwaas adjectivadan insha Allah waan dhigan doonaa. qaybta ku sii xigta waa adresse iyo habitation on hore soo aragnay maxay ahayd fiidiyoga hore soo aragnay waa kii kana adresse-na maxay waa ciwaanka habitation waa meesha aad degan tahay ama ku nooshay vous habitez où halkee baad ku nooshay où habitez-vous halkee baad ku nooshay quelle est votre adresse waa maxay ciwaankaagu waxaasoo dhan waa isku wada mid j'habite à Paris baad ku nooshay Paris j'habite à Londres hadda London ku nooshay London j'habite à دغدبا تقدر بكون شيء صار j'habite à Djibouti da كون شيء j'habite à Somalie حتى Somalie كون شيء أنا Somalie يا شيء mon adresse rue de Paris adresse كأنه هدو يهمل لجرنا يو adresse كأنه ماشي كنت على الكاوكي الadresse كبرنا أو mon adresse est rue de Paris أما هالكابو كي على مكانه واحد وطريقة باري بيقول كلها هو adresse لجرنا يقوله يستعمل كرس adresse كنا إن كلمتها عن صو عرقنا هاربان صو كلمتها نقول فيديو قرر بيكجرين وكلمتها وقوم همسن أن كده حلي كرنو dialogue en français en Somalie partie numéro 2 كنا دبل قيمتي سيلابات وكلمتها سي بريزونتي أو كلا دي سي بريزونتي درت فيربها وإسبرشوا بين قطع إسحادرين وين قطع فيربها présenter وإسحادرين je me présente moi ce qui me paraît je me présente tu te présentes واسكت برسا إميكا سلابو معناه ويالا نو maxay waa magac prénom waa magacaaga hore waa magacaaga weyn bono ashna waa da'da ama cimriga qofka naissance na maxay waa dhalasho datna waa taariikh profession waa shaqo ama xirfad métier na waa travail waa shaqo maxaa kale hôpital waa dhakhtar takale ku xigta waa maxay étudiant waa arday takale ku xiga kalmada kale ku xigta waa nationalité waa maxay waa dhalasho ama waa jinsiyad takale ku xigtana waa pays waa wadan takale ku xigtana waa adresse waa ciwaan takale ku xigtana waa question waa su'aal takale ku xigtana réponse waa jawaab tagu dambeysana waa habiter oo degan ama ku nool